maanta waa maalintii 232 ciidamada Yuhuudda wali ay ka dhex dagaalamayaan gudaha magaalada Gaza gaar ahaan hadda duqeymo ba'an iyo dagaal aad u xoogan ayaa waxa uu ka socdaa bariga magaalada Rafah sidaas oo kale waqooyiga magaalada Gaza waxa ka socda duqeymo aad u daran walibana ay isaga hor yimaadeen ciidamada infantryga Yuhuudda iyo iska caabinta Falastiiniyiinta Beit Hanuun oo aan la socon inay tahay meelihii fakti koowaad dagaalku ka bilowday ay ciidamada Israa'iil guutooyinkooda dhan hadda dib isku urursanayaan oo ay doonayaan inay mar kale ay halkaas howlgal ka bilaabaan kadib markii maalin dhaxda saddex kamida ciidamada Yuhuudda Hamas ay ku togteen halkaasi saddexdaasi oo muhiim u ahaa ciidamada Yuhuudda kuwaas oo lagu sheegay inay ahaayeen dad qubara ah laakiin kabtooda halkaas iyagoo meedan laga qaaday meedkoodii ay halkaas ay ku jiteen marka hadda يعني waxa ka socda dhanka waqooyiga duqeymo aad u baan sidaas oo kalena dhanka barigana waxa ka socda yani dagaal aad u daran maalinkii jimcaha ahayd iyo maalinkii isniinta ahayd maxkamadda caalamiga waxay soo saartay go'aan ay ku sheegayso in la soo xiro oo faarka weyn Netanyahu iyo Afgaran sidaas oo kale maalinkii shalay ee maalinkii jimcihi ahayd waxay soo saartay go'aan ah in markaas la joojiyo Israa'iil ay joojiso howlgalka bariga Rafah ka wado laakiin Israa'iil si qayaxan ay u diiday in dagaalkaasi bariga Rafah aysan joojinin iyadoo markaas garab ka helaysa oo faarka ugu weyn adduunka lagu magacaabo Mareykan laakiin Hamas waxay bilowday inay dhiiga ay ku kiciso hogaamiyaha Israa'iil ninka lagu magacaabo oo faarka Netanyahu aha laba muuqaal oo dhiiga ku kiciya ay maalmihii ugu dambeysay soo bandhigayeen waxaan la soconaa konreelkii lagu magacaabay Asaf Hamami oo Israa'iil bishii December 2003 ay ku sheegeen inuu geeriyooday in Hamas ay yiraahdeen ninkii waa uu nool yahay laakiin uu dhaawacan yahay waqti ayaa idinku socda ninkaas hadaa doonaysaan yani wada hadalka u soo fadhiista tii oo ay jirtay ayaa haddana waxay soo bandhigeen ciidamo 10 sano ay hayeen oo 2014 ay qabsadeen oo ay markaas u muujinayaan shacabka Yuhuudda in odayga Netanyahu ah dan iyo xaajo uusan ka lahayn shacab iyo ciidamo lagu haysto gudaha magaalada Gaza run ahaantii taas waa ay muuqataa 10 sano ciidamo la haysto in uu markaasi uu Hamas uusan kala gargortamin ama si xeelada uusan kula gargortamin sidii 2011 markaasi hal askari uu ku badashay ninka la yiraahdo Yahya Sinwar hal askari yani dad badan oo Falastiiniyiin ah askarigaas ama heshiiskaas lagu magacaabo Gilad Shilad marka odayga Netanyahu wuxuu ka cabsi qabo waxay tahay hadii askartaas hal ii soo daayo uu yiraahdo wuu ogyahay Hamas inay dhahayaan waa inaad noo soo deysaa saraakiisha sarsare ee xabsiyada ku jira waa inaad noo soo deysaa dadkaas muhiimka ah marka Netanyahu wuxuu ka dhimanayaa intii uu dadkaas askartaasi uu soo deyn lahaa iyagoo bad qaba in askartaasi ee shacabka gudaha magaalada Gaza loogu haysto inuu burburiyo isaga oo yoolkiisa uu yahay inuu markaas uu qaarajiyo Yahya Sinwar laakiin Yahya Sinwar waxa uu ku dhex jiraa sanduuq madow oo gudaha magaalada Gaza dhex yaala sanduuqaas madow oo ciidamada Yuhuudda markay gacanta la galaan gacanta ay ka gooyso sanduuqaas madow ciidamada Yuhuudda markay madax la galaan luquntooda ama qoortooda go'an ay ka soo laabanayaan marka xaalad aad u daran ayaa ciidamada Yuhuudda gudaha magaalada Gaza ku haysa runaantii waxay ku fashilmeen xagga istiraatiijiyada dhanka bariga ciidamadooda ee infantryga ka dagaalamayaan xagga yani badda ay ka dagaalamayaan xagga hawada ay ka dagaalamayaan waxa looga guuleystay oo kaliya ciidamada Yuhuudda dhanka warbaahinta muuqaalada la soo bandhigayo propagandada ayaa loogu guuleystay iyagoo awood meel walba u leh ciidamada Israa'iil waxa lagu sheegay inay yihiin ciidamada ugu awooda badan bariga dhexe laakiin haddana waxay kari laacsan yihiin inay markaasi awoodii yani warbaahinta ay qabsadaan awoodii warbaahinta inay qabsadaan ay kari waayeen maxaa loogu guuleystay marka qodobka looga guuleystay ayaa wuxuu yahay yani Hamas waxay mararka qaarkood waxa isleedahay war nimankan yani buugta ay aqristeen cilmigan istiraatiijiyada dagaalka halkee ay ka keeneen mararka qaarkoodna marka afiiris waxa isleedahay waxay aad isugu badnaadeen inay aqristaan buugan loo yaqaan The Art of War oo qoray ninka la yiraahdo Sun Tzu ninkaasi wuxuu leeyahay mararka qaarkood u muuqo markaad daciif ka tahay qof adag markaad tahay qof daciif ah isku muuji inaad tahay qof adag
marka aad yani qof adag aad tahayna isku muuji inaad tahay daciif intaba markaa fiirso taatikada ay markaas iska caabinta Falastiiniinta ay adeegsanayaan weeye waxaa maalin dhexdaas arkayseen ciidamadii Yuhuudda dhankan Beit Xanuun iyaga oo markaasi meel toosh ku daaraya ayaa loo dhakanaa kaamirooyin meel loo dhigtay ilaa ay ka soo dhawaanayeen yani howlgal ma uusan dhicin markii ay ciidamadoodii 5 ilaa 4 ay soo galeen aagaasi ayaa hal mar loo taabtay marka yani waxyaabahaasi taatikadaas waxay muujinaysaa يعني إن النفط هذا حكميسو إن النفط هذا حكميسو إن حكميس نفط هذا نوحي كعاونة يسارون أهانتي إن تفهمتو ملا أول كودا ضدك عديد كاسه رجدا وحي ملا أول يان أو إن يكون يرهدان والكوح هذا سواد ضعيف والشخص كان واد ضعيف عديد أنا مركز محي كو سهل يسا وحي كو قرشين يسا حالة كو حبون رجاس عديد كاسه رجدا إن المركز الدجيسد حالة كو حبون مركو وحيابها اللياب كانوا وحي تهي أساف همامي أو ديسمبر 2023 أي شيئين عندما إسرائيل إنه لنتي حماس أفكا أيا وحرنا مرنا ما يسان هدلين انتا صوبنا سديد بلود أفكا أيا وحرنا مالنكي دراد أها أي أفكا فرتين وحي يراهدين ننكي وأونولي هاي مانا أوسان جيريون هدي إديك أتعسيدي سديقتين أسود دقدقة وقت أيا نكو سعودة هدي كلا إساقنا قعنتينا يكو بحدونا sababtoo iska caabinta Falastiiniintu waxay og yihiin in nimankaasi badqabkoodii iyaga ay ka talinayaan laakiin nimankaas ay ku baxayaan gacankoodii gacanta ciidamada Yuhuudda ay ku baxayaan xitaa ciidamada Yuhuudda dhexdooda islaynayaan ilaa ay hadda inta gacantooda ay isku dileen la qiyaasayo 48 ilaa 50 oo ciidamada Yuhuudda dhexdooda iska shakiyeen iyaga dhexdooda ay kala cabsanayaan marka Xamaas waxay yiraahdeen waqti ayaa idinku socda nimankan gacantiina ay ku bixi doonaan saraakiisha aan hayno kuwa 10 sano kuwa shacabka hadda aan hayno iyo sarkaalka lagu magacaabo Asaf Hamami oo 7 Oktoobar aan soo kaxaysanay intaan idinka iska dilina oo duqeymo aan isaga dilina intaad raadinaysaan sanduuqan madow ee magaalada Gaza gudaheeda yaala waqti ayaa idinku socda gaar ahaan fariintaas waxay ku socotay oo faarka Netanyahu iyo Yoav Gallant iyo wasiiradiisa gaarka uu ka mid yahay Itamar Ben-Gvir iyagii dhaxdoodii waad la socotaan wasiirada kuwa dagaalka ahaa oo hogaaminaya Netanyahu ninka lagu magacaabo Benny Gantz iyo xitaa ninka lagu magacaabo Eisenkot in shirkii shalay dhacay inaysan ka soo qayb galin iyagii dhaxdooda ayaa hadda isku dhagan oo waxaan arkay ninkii hore wasiir wasaaraha ka soo noqday Ehud Olmert inuu lahaa uu aad ugu hambalyeynayay Benny Gantz iyo ninka lagu magacaabo Eisenkot inay ka baxaan xukuumadda dhiyigi cabka ah oo xitaa dadkeedii gudaha magaalada Gaza loogu haysto dan iyo xaaje aan ka lahayn marka Israa'iil dagaalkan meelo badan ay kaga fashilantay yani hadda cadaadis kale ayaa wuxuu ka haystaa dhanka Yurubtii ayaa si kala qaybsantay waxay ku kala qaybsameen arinka Israa'iil qaarkood waxay taagan yihiin waa in Falastiin loo aqoonsado dawlad halka qaarkoodna ay leeyihiin go'aankii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ma ahan wax sax ah waxaa ka mid ah wadamadaasi wadanka Czech iyo wadanka Hungary oo ra'iisul wasaarayaalkoodii ay taagan yihiin in la isbarbar dhigo niman markaasi si xorriyad ah dimuqraadiyada loo soo doortay iyo niman argagixiso la yiraahdo xabsiga hal la soo dhigo cadaalad ma ahan iyo waxa qarraqda ka yeeray wadiyaabaysa sidaas oo kale Jarmalka iyagana laf ahaantooda waxay taageero u muujinayaan Israa'iil marka Israa'iil cadaadis dhinacyo badan ayaa saaran run ahaantii Yurubtii ay saaxiibada ahaayeen ayaa dharbaxyo aad u kulul kaga timid dharbaxyo aysan filin kaga timid markii Yurubta qaarkood ay yiraahdeen waa in go'aanka maxkamadda caalamiga ka soo baxay in la fuliyo go'aankaasi oo ah in la soo xiraa Yoav Gallant iyo Netanyahu go'aankaasi oo ah in dagaalka sidoo ugu dhaqsiyaha badan la joojiyo laakiin Israa'iil garabka ugu weyn ee maanta ay helayso waa garabka dhanka Mareykanka garabka ugu weyn ee markaasi ay dagaalka ay ku duulayso waa dhanka Mareykanka laakiin waxa halkaasi ka qabsada taariikhda ayaa xusi doonta sanduuqan madow ay raadinayaan gudaha magaalada Gaza taariikhda ayaa sheegi doonta halka uu yaallo taariikhda ayaa xusi doonta halka ciidamada ay ku baaba'ayaan